بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشان لها الدين تعالى الحسيني. هل كنا وحنو إذن كسو قدبنا تفسير دقدقة وككوبا بقول إيا اللباتن عشر كي وليبنا وحنبارسية هي الله مقره وحنا سوى شيدنا الشيخ عثمان علي حسين. نسخة أصل كاهي تفسير كنا وحا إسكاله تسجيلات الحسين الإسلامية إلهي وحنو كرجيننا إنو الشيخ كأبا المريئي عدك الصعوك قيب قادتي حوشا in ay diyaar garayso halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koobaad ee tafsiirka Sheekh Uthman Ali Hussein. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سورة الفاتحة أول السورة وهي suuraddu waa makiya a dhici karta culimada qaarkood inay madaniya ku sheegaan. waxaa kaloo suuraddan ay leedahay magacyo kale oo culimada qaarkood ilaa 19 ay gaadhsiiyaan. marka waxaad u raacan doontaan abaad ka raajixi doontaan kutubta tafaasiirta ayaa u doonan doontaan. u banbixi mayno wax badan oo tafaasiirta culimadu ay sheegeen. wuxuu u badnaan doonaa un darsigeenani inaynu isa saarowna batarkiibka ayuu u badnaan doonaa. sidaa daraaddeed waxaynu ula jeednaa in si dhaqso ah haddii ilaahay inoo qadaro subxaanahu wa tacaala inaynu iskaga dhammayno. habeenkiiba waxaynu akriyi doonaa 2 maqre. macnaheedu 4 habeen baynu akriyeynaa asbuuca, taasoo u dhiganta inaynu asbuuci walba akrino jis maaragtay ka mida ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. basmalada amba bisinka culimadu way isku khilaafsan yihiin. ma waxa weeye aayad ka mid ah suurad walba, ma suuradda faatixada ayuunbay aayad ka mida uu yahay, suurad walba ma aayad barkeedba, mise aayadba ma aha ee waxa loogu bilaabay uun in suuradaha lagu kala saaro amba lagu kala sooco. sidoo kale waxaa la isku khilaafaa yacni marka salaada lagu jiro in la siraysanayo iyo in lala jahrayo. bismi illaahi araxmaani araxiim. xarafkan jeer bacda ah waxa uu ku xidhan yahay shay la qadarayo. bismi illaah culimada qaar waxay qadarayaan magac. bismi illaahi alla magaciisa ayaa ibtidaa'i uu yahay amba ay tahay ku bilaabashadaydu. culimada qaarkoodna ficil bay u qadaraan oo waxay yidhaahdaan abda-u waxaan ku bilaabanayaa amba aan ku bilaabayaa bismi illaah alla magaciisa. bismi illaah ismigu waa mufrad mudaafo weeye, cumuumna waa faa'iideyn karaa. aw ibtada'tu waxaan ku bilaabay bismi illaah baad odhan kartaa. marka labaduba waa saxiix, labadaa macnayooba waa saxiix buu noqonaya. hadaad ficilka qadarto iyo hadaad masderka u qadarto labaduba qur-aanka way ku yimaadeen, sida bismi illaahi majreeha wa mursaaha, amaba abda-u bismi illaahi iqra' bismi rabbika aladii khalaq. marka waa lagu bilaabi karaa. bismi illaah alla magaciisa ayaan ku bilaabanayaa wey, amba ayay tahay ku bilaabashadaydu. allahna waxaa ka waa calam amba waa magac ilaahay magacyadiisa ka mida subxaanahu wa tacaala. allaha arraxmaani ah, allaha naxariista badan. alraxiim naxariista badan ma leh. waa 2 ismi waana 2 sifo. labadan ismi oo ka soo jeeda min alraxma. alraxmaan waxaa ku jira xeel dheeraansho amba waa lagu fogaaday. raxmad ballaadhan oo fidsan buu ilaahay leeyahay subxaana. sidaa daraaddeed bay culimada qaarkood ay leeyihiin alraxmaan
ayaa ka xeel dheer magaca kale ee arraxiim kaasaa ka xeel dheer bay leeyihin waayo arraxmaan ilaaha guud ahaan u naxariista ee khalqigiisa oo dhan u naxariista arraxiim ilaaha gaar ahaan ugu naxariista weeye addoommadiisa mu'miniinta ah allaha markaa waa sifo bismi illaahi allihii baad odhanaysaa arraxmaani ah guud ahaan u naxariista allaha arraxiim gaar ahaan ugu naxariista mu'miniinta oo waxay leeyihiin arraxiim ilaahay gaar buu ugu naxariistaa waxaana qur-aankaba ku sugan wa kaana bilmu'miniina raxiima waa ilaaha mu'miniinta gaar ahaan ugu naxariista weeye alxamdu ammaan waa asanaa ashani waxay faa'iideynaysaa istiqraaq ammaan oo dhan ilaahay baa iska leh laakiin bishardi waa mid uu ilaahay isku ammaanay waa inay tahay ama rasuulkiisuba uu ku ammaanay ashu istiqraaq bay faa'iideynaysaa marka lagu leeyahay bimacnaa waa ammaan oo dhan alistiqraaq haddii lagu yidhaahdo kullu lafdiga la yidhahdo baa halkan tegi kara ay kullu lxamdi ammaan oo dhan lilaahi alle ayaa iska leh alxamdu ammaan lilah alle ayaa iska leh subxaanahu watacaala allaha rabbi alcaalamiin caalamka oo dhan rabbigiisa ah marka ilaahay ammaan oo dhan marka ashu waa istiqraaqiya jinsi maaha sida mufasiriinta qaarkood ay tilmaameen oo daliilna waxa u ah ashani liistiqraaq inay tahay allahuma laka alxamdu kulluh ayaa rasuulka ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh ammaan oo dhan rabbi waa iska leh alxamdu ammaan lilaahi alle ayaa iska leh allaha rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah ilaaha maamulaya subxaanahu watacaala rabbi waxaa la yidhahdaa asayid waa la yidhaahdaa ka arrimaha khalqiga maamulana waa la yidhaahdaayo wax hagaajiya marka rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda ah ilaahaas ayaa iska leh marka alcaalamiin waa jamcu caalam bifatxi illaam waxaa la yidhahdaa wax kastoo jiro ilaahay ka soo hadha waa jamacaasunbuu iskaga yimaadaayo mufrad ma laha cawaalimna waxaa kaloo noqon karaa noocyada makhluuqaadka o dhanna cawaalim baa lagu jamciyaa marka wixii alla ka soo hadho wey wixii ilaahay ka soo hadho ayaa la yidhaahdaa caalam sida waad garanaysaan oo fircawn markuu weydiinayay nabiyullaahi muuse qaala fircawnu wamaa rabu alcaalamiin qaala rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin marka waxay leeyihin caalam waxaa laga soo dilaaciyey amba uu ka soo jeedaa min alcalaama amba min alcalam macnaa waa astaan oo waxay kutusaysaa ilaahay subxaanahu watacaala jiritaankiisii wey ilaahaas ayaa ammaan oo dhan iska leh allaha arraxmaani guud ahaan u naxariista alraxiim ilaaha gaar ahaan mu'miniintiisa ugu naxariista allaha ayaa iska leh subxaanahu watacaala waad ka sii wada sifaynaysaan allaha maaliki yawmi ddiin maalinta abaalmarinta ilaaha mulkiyey ee iska leh maliki haddii la akriyana boqorka maalinta ah wey maaliki yawmi ddiini maalinta abaalmarinta ilaaha iska leh addiin waa aljazaa waa abaalmarin maaliki yawmi ddiin abaalmarinta yoomkeeda amba maalinteeda allaha mulkiyey allahaas ayaa ammaan iska leh subxaanahu watacaala marka yawma addiin yawmuddiinka waynu iska garanaynaayo waa maalinta aan cid hadli kartaa iyo cid juuq odhan kartaa midna aanay jirinba wey marka addiinu waa aljazaa ainaa lamadiinuun majziyuuna weeye muxaasabuun iyaaka nacbud ay nacbudu waxaanu caabudaynaa uun iyaaka adiga ayuun baanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin ay wanastaciin waxaanu kaalmo weydiisanaa amba aanu gargaarka ka doonnaa iyaaka adiga un rabbiyo cibaado waxaa la yidhaahdaa uun sharci ahaan wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay isaguna uu jideeyey baa la yidhahdaa xasri baa ku jira sidaa daraaddeed bay culimmadu yidhaahdeen iyaaka nacbud macmuulkii baa maaragtay mafcuulkan la taqdiimiyey amba la horraysiiyey waxa uu faa'iideynayaa xasri rabbika keliya cibaadada xaqule inuu yahay aayadduba waxay la macno tahay bay culimmadu yidhaahdeen laa ilaaha ila allah iyaaka nacbud
ay nacbudu iyaak adiga ayuun baanu rabbiyow ku caabudayna wa iyaaka nastaciin ay wanastaciinu iyaak adiga ayuun baanu kaalmana ku weydiisanayna markaa waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam maaragtay isticaarada laftigeedu cibaadaday ka mid tahay laakiin cibaadadaa ka caamsano markaasaa cibaadadii la horraysiiyay oo dee isticaanada iyo keyrkeedba cibaadaday hoos gelaya marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu isu ammaanay aayadda qaybtii hore o dhan oo marka ilaahay is ammaanay macnaha meesha ku jiraa waxa weeye idinkuna waxaad noqotaan kuwa ilaahay ammaano wey ihdina nagu hanuuni asiraata dariiqa almustaqiima toosan waad ka sifaynaysaa ihdina nagu hanuuni allow asiraata dariiqa nagu hanuuni almustaqiim toosan ilaahu dariiqaa nagu hanuuni macnaa asiraatu waa alislaam ma arkaysa marka lafdigani ihdina amba hidaayadani ilaahay ow nagu sug wey waxay noqotaa laba macnayoba hidaayadu way noqotaayo mar waxaa la yidhahdaa hidaayat lirshaad marna waa hidaayat tawfiiq weeye ficilkani mararka qaarkood sidiisu ugu tallaaba mafcuulka sida hadda inoo taalla ihdina asiraada sidiisuu u gaadhay mafcuulkii ma og tahay isagoo xarafka ilaah ku tacadiyaana waa jira fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim laamkana wuu ku tacadiyaa alxamdu lilahi aladii hadaana lihada marka ilaahay oo nagu hanuuni dariiqa toosan marka asiraat fi luqati alcarab waxaa la yidhahdaa dariiqa cad baa la yidhahdaa wax qalloocoo ku jira aanay jirin wey culimadu waxay leeyihiin asiraat xaasilku wuxuu noqonayaa almutaabacatu lilahi walirasuul nagu hanuuni dariiqa asiraada dariiqa almustaqiima toosan siraada aladiina kuwii dariiqooda ah siraada aladiina kuwii dariiqooda ah waa mufasir dariiqaa horuu tilmaamaya caddaynaya siraada aladiina kuwii dariiqooda ah ancamta aada u nicmaysay calayhim ayaga aada u nicmaysay calayhim ayaga aada u nicmaysay waa kuwa ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala fi suurati nisa ma arkaysa maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ancamta aada u nicmaysay calayhim kuwaa dariiqooda ilaahay oo nagu hanuuni kuwaasoo hayri lmaqduubi kuwa hayri lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday hayrkooda ah marka calayhim iyo calayhim way kala duwantao calayhim ta hore mafcuul weeye ta dambana waa naa'ibulfaacil weeye hayri lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday hayrkooda ah oo aan kuwa ahayn iyo waladaalliin kuwa lunsanba kayrkooda ah laadani ta'kiidun bay faa'iidaysay ma ogtahay markaa maqduubu calayhimtu waa yuhuud weeye oo shaygii xaq ahaa ee og yihiin bay ka leexdaan daalliintuna maaragtay waa nasaarada weeyaanoo ilaahay jahli bay ku caabudaan waxaa mustaxaba qofku markuu akriyayo qiraa'ada waynagu aragnay salaada aamiin inuu yidhaahdo macnaheedu allahuma istajib weeye ismu ficil amarkaa weeyaano ilaahay oo baryadayada aqbal bay noqonaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lbaqara waa madaniya weliba qur-aankii awalkii madiine kusoo degay bay ka mid tahay aayado kooban mooyaane sida aayaadka ribada oo kale oo qur-aankii awaakhirtii soo degay amaba masalan dee aayaddii kale ku jirta iyaduna xajat lwidaaci mina kusoo degtay baa jirta wataquu yawman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaas oo kale markaa suuratu lbaqara macnaa waa suuraddii lagu dhex sheegay baqarada ambasaca qisadii ku saabsanayd madaniya marka lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye bacda alhijrati rasuul bay soo degtay waa madani bilaa khilaaf bay culimada qaarkood leeyihiin qaarkoodna aayaddaasi ayay ka reebaan aayaadka suuraddu waa 287 aayadood weeye fadaa'il fara badan bay leedahay waxaad u raacan doontaan kutubta tafsiir bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclam bimuraadih halkaasaynu inagu iskaga gaabsanayna waayo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu la gaarka yahay cilmigooda ayay ka mid yihiin xuruuftani marka cilmigeeda waa in alla loo celiyo aan lana fasirin ahlu cilmiga saasay ku tegeen
culimada qaarkood fasiraa way jiraan laakiin waxaad rumaynaysaa uun inay ilaahay kalaamkiisa ka mid tahay ilaahayna aanu xikmad la-aan ugu hadlina xikmad ay xambaarsan tahay inta badan xuruuftan gaagaaban marka ilaahay suuradu ku furfurto subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa wuxuu ku xigsiiyaa ka warramid uu qur-aanka ka warramayo ayaa ilaahay ku xigsiiya waa taxaddi un bay culimada qaarkood ay leeyihin ilaahay qur-aankiisa inagu tusayo sida uu yahay mid mucjisa oon ciidina aanay la iman karin isagoo weliba ka kooban xuruufta ay yaqaanaan suuradaha qaarkood xaraf keliya ilaahay ku bilaabay sida saad oo kale ma og tahay baqaaf oo kale nuunka oo kale xaamiim 2 xaraf 3 xaraf way gaadhay 4 5 ma arkaysaayoo sida maaragtay kaaf haa yaa cayn saad oo kale ah marka asalkaba qaabka u heli jireen carabta kalaamkoodu intan unbuu ka kooban yahay kalaamka carabiguba xaraf amba 2 xaraf amba 3 xaraf amba 4 xaraf amba 5 xaraf maba jira bay yidhaahdaan kelmad ka badan 5 xaraf ay leeyihiin lidaalika sidaasi ayaanay haddana ula iman karin qur-aankan mid ka mida inay la yimaadaan taasi waxay kutusaysaa icjaaska qur-aanka ayaa ilaahay ku cadaynaya amba waa intisaar ma arkaysa aanay dadku awoodba ulahaan iyo jin iyo insitoona inay la yimaadaan dalika ay hada ayaynu odhanayna dalika kaasi amba kaagaasi amba dalika ka ay hada kan alkitaabu kitaabkan laa rayba shaki fiih kitaabkan dhexdiisa kuma sugnaanin dalika ay haadaka dalika ay haadaka alkitaabu laa rayba fiih shaki kuma jiro amba kuma sugnaanin baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala waxaa shaki oo ku sugani ma ahaanin wey hudan fiih qadar waxaa ku sugan hudaa hanuun baa ku sugan baa ilaahay leeyihi subxaanahu watacaala lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah baa uu ugu sugan yahay hanuun wax shaki oo kitaabkan ku jiraana ma jiro weeye alraybu waa ashak iskuma khilaafsano mufasiriintu inuu caynkaas ay tahay muttaqiinta ayaa hanuun ugu sugan yahay baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala aladiina muttaqiintaasoo yu'minuuna rumeey bilgayb waxa maqan ee iyaga ka qarsoon bimaa gaaba canhu wax kastoo ilaahay rusushiisu ay u sheegeen ay uga warrameen ayay rumeeyeen aladiina mu'miniintaasoo yu'minuuna rumeeya bilgayb qaybka rumaynaya baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala oo wayuqiimuuna ooga alsalaa salaadana ooga salaadiina ilaaliyo oo sidii ay ahaan jirtay ee rasuulkii ilaahay kaga tegay ula yimaada wa mima kii wax ka midana mintan tabciidiya la yidhaahdaayo oo wayunfiquuna bixiya mima ay bacda maa kii qaarkiina bixiya rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay wixii aanu ku arsaaqnayna qayb ka mida ayay bixiyaan bas sakada waajibka ha noqoto amba sadaqad kaleoo tadawuca ha noqoto ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa niman maaragtay bukhala oo gacan adag inaanay ahayna inay bixiyaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala ku arsaaqay wax ka mida wey waaladiina mu'miniintaasoo aynu horaba ugu sii muttaqiintaasoo aynu ka sifayno amba istinaafa aynu ka dhigno waaladiina kuwii buu hanuun u yahay yu'minuuna rumeeya ama rumaynaya bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey waaladiina kuwii buu hanuun u yahay yu'minuuna rumaynaya bimaa ay biladii kii rumaynaya unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey wamaa wa bimaa kiina rumaynaya unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa wa bilaakhirati hum yuuqinuun bilaakhira waxa uu ku tacalluqayaa yuuqinuun marka humtaasaa mubtada ahoo tarkiibku wuxuu noqonayaa sidan oo wahum ayagu yuuqinuuna yaqiinsanaya bilaakhira aakhirana yaqiinsanaya oo si dhaba u rumaysan aakhiro wa bilaakhira wahum ayagu yuuqinuun macnaa yaqiininaya bilaakhira aakhirana yaqiinsanaya macnaha daarta dambe kuwaas ayuu u yahay hanuun buu u yahay ilaahay saasuu tilmaamaya subxaanahu watacaala amba u aayaadkan ku caddeeyey marka 4 aayadood waxay ku saabsan yihiin nactiga amba sifada ay leeyihiin kuwa mu'miniinta ah
laba aayadood oo dambe soo socdaana waxay ka hadli doonaan kaafiriinta dhowr iyo 10 ka soo socdaana munaafiqiinta ka hadli doonaan ulaa'ika tilmaantu maxay ku dhacaysaa waa kuwii hore loo soo sheegay ulaa'ika kuwa ku sifaysan tilmaamaha la soo sheegay ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun dushii bay ku sugan yihiin hanuun korkii bay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah kuwaasunbaa liibaanay cid kaloo liibaantay ma jirto iyagaa lagu koobay liibaanidaba xasri baa la geliyey ma ogta ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee kufriyey gaalnimada la yimi sawaaءun waxaa ku siman calayhim korkooda waxaa ku siman aandartahum u digtaya inaad u digto am lam tundirhum umaa diginaa laa yu'minuun ma rumayn doonaan oo iimaanba lama iman doonaan waa qaar ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimo inay ku baxayaan u qadaray wey marka ina aladiina inadani khabar bay u baahan tahay oo laa yumin jumladaasaa khabarkii dhacaya sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhumna jumlo muctarida awi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay laa yu'minuun saasay noqon laa yu'minuun waa qaar iyaga ka midi ma noqon doonaan kuwa iimaan la yimaadaba alla leeyahy subxaana sawaaءun waxaa ku siman oo isku mid ku ah calayhim ayaga dushooda aandartahum inaad u digtaya am lam tundirhum umaa digina kuwa maaragtay indaarka digiddu ay wax tarayso maaha inaad u digto iyo inaanad u digini waa isugu mid weeye culimada qaarkoodna waxay leeyihiin laa yu'minuun waa jumla mu'akida ta horun bay adkaynaysaaye ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaءun waa isku mid aad tidhaahdo sawaaءun waa isku mid calayhim ayaga korkooda waa isugu mid aandartahum u digtayaa am lam tundirhum umaa digina laa yu'minuun saasaad odhan hum laa yu'minuun khatama allahu alla wuxuu xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda ayuu alla xidhay wax galaya iyo wax ka soo baxaya midna ma jiro haddii khatmiga la yidhaah khatama allahu alla wuxuu xidhay calaa quluubihim buu xidhay wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay wuu xidhay halkaasi ayaad joogsanaysaa wa calaa absaarihim gishaawa gishaawadaa dambaa mubtadiya oo mu'akhara ma og tahay wa calaa absaarihim araggooda dushiisana waxa ah gishaawa daboollo ayaa saaran baa rabbi wa calaa absaarihim aragyadooda dushoodana waxa ah gishaawa daboollo calaa absaarihim taasaa khabara walahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiim way wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah waa minta tabciidiyadii wey wa min annaasi dadka waxaa ka mida man duul baa ka mid ah yaquulu yidhaahda aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyawmi maalintii ayaanu rumaynay alaakhiri dambe qaar baa saale waa kuwa munaafiqiinta ah baa ilaahay aayaadka kaga hadlay subxaanahu watacaala xaaladoodu ilaahay bayaaminayaayo nimankani iimaanna way muujinayaan oo way daahirsanayaan gaalnimona way qarsanayaan wa min annaasi dadka waxaa ka mid a manduul ayaa ka mida yaquulu leh aamanaa waanu rumaynay billaahi alleh iyo wa bilyawmi maalinta alaakhiri dambe wamaa hum may ahaanin bimu'miniin kuwa mu'miniina may ahaanin baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala yukhaadicuuna allaha alla ayay khiyaamaynayaan macnaha iyaga ayay aragtidoodu la tahay inay alla ka dhuuman karaan khadaaca wax qarin baa la yidhaha yukhaadicuuna allaha alla ayay khiyaamaynayaan iyo waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana khiyaamaynayaan ilaa anfusahum lafahooda mooyaane wamaa yashcuruun mase dareensano oo ma oga wamaa yashcuruun ma oga khiyaamadoodan iyo khidaacay la yimaadeen dhibaatadiisu inay iyaga soo gaadhayso marka waa munaafiqiin weeye nifaaqana wax maxaa la yidhaahdaa nifaaqa waxaa la yidhahdaa idhaaru lkhayri wa israaru shar waxaa la yidhahdaa qofku inuu dadkana khayr tuso inuu leeyahay amba khayr samaynayo sharna uu qarsanayo
marka nifaaqu uu qaysamaayo anwaac buu leeyahay mid waxa la yidhahdaa ictiqaadi baa la yidhaahdaayo waa munaafiqnimo qofka caqiidadiisa haysata waa tasaaxiibkeedu uu ku waaraya naarta midna waxa la yidhahdaa nifaaqa camaliga ah baa la yidhaahdaayo waa min akbari dunuub weeye waayo qofka munaafiqa ah qowlkiisa iyo ficilkiisa ayaa iskhilaafsan sirtiisa iyo waxuu dadka u sheegayaana way iskhilaafsan yihiin ma arkaysa marka aayadani dee inkastoo waa madani weeye marka waa suura madaniya waayo waktigii maka iyaga ma jirin nifaaqani bale kaana khilaafa iska caddaysanaya gaalnimadooda iyo shirkigoodaba ma arkaysa sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuxuu tusay oo ku baraarujiyey sifaadka ay munaafiqiintu leeyihiin si aan loogu daganin allah wuxuu yihi subxaanahu fii quluubihim qalbiyadooda waxaa ku jira fii quluubihim quluubtooda waxaa ku sugan marad cudur baa ku sugan waa maradka shaki wey shaki baa ku jira fii quluubihim waxaa ku sugan marad baa ku sugan fazaada wuxuu u kordhiyey hum ayaga allahu alle wuxuu u siyaadiyey maradaa cudur baa alle u siyaadiyey subxaanahu watacaala nifaaq kale markay xumaan la yimaadeen bu alle cudur u siyaadiyey wey waa maradun fi ddiin baa la yidhaahdaaye maaha mid ay jidh ahaan ay u bukaan si kale aynu u tarkiibin karaayo fii quluubihim waxaa ku sugan marad cudur baa ku jira fasaadahum allahu alla ha u siyaadiyo waa ducaau calayhi marka fasaadahum allahu alla ha u siyaadiyo marada shaki iyo cudur alla ha u siyaadiyo walahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday cadaabun cadaab bay leeyihiin cadiibkaasoo aliim ay mu'lam culimada qaar sidaasay leeyihiinoo faciilkani bimacnaa mufcal weeye cadaabka laftiisa ayaaba la xanuujiyey iska daa ka lagu cadaabi doone waa cadaab laftiisa la xanuujiyey ayay leeyihiin walahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo ka sifee aliimun ay mu'lamun la xanuujiyey cadaab isagaba la xanuujiyey waxaad garanaysaa inay kasii daran tahay iyagana siduu u xanuujin doona maxay cadaabkaa ku muteen bima kaanuu yakdibuun ay bikadibihim beentooda ay yidhaahdeen iimaan baanu la nimi iyagoon la iman baadani waa aragtay waa sababiya maadana masderiya la yidhaahdaa marka inaga qiraa'adan imika inoo taala ilan bima kaanuu yukadibuunana waa la akriyaa bima kaanuu yukadibuuna haddii la akriyo waa bisababi takdiibihim beeninta ay beeniyeen xaqa ay beeniyeen bay taa ku yeesheen amaba bima kaanuu yakdibuun ay bisababi kawnihim kaadibiin ahaanshahooda ay ahaayeen kuwa beenaalayaal ah oo macnaa ay ku been sheegayaan iimaankan ay sheegteen ayagoon iimaankan aan lahayn waidaa qiila marka lagu yidhaahdo daraf wey waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhaah laa tufsiduuha fasahaadinina fi lardi arladaha fasahaadinina qaaluu waxay yidhaahdaan inamaa naxnu anagu waxaanu nahay uun muslixuun kuwa arlada ilaahay hagaajinayo oo islaaxinayo arlada ilaahay laba waxyaabood bay ku fasahaadaa macaasida iyo macaasida oo la isfaro samaynta macaasida iyo macaasida farideed waidaa qiila marka la yidhaah lahum ayaga lagu yidhaah laa tufsiduuha fasahaadinina fi lardi arladaha fasahaadinina qaaluu waxay yidhahdaan inamaa naxnu anagu waxaanu nahay muslixuun kuwa hagaajinaya arlada ilaahay oon fasahaadinaynin baanu nahay alaa hooy waxaa la yidhahda adaatu tanbiih baa la yidhahdaa murakabna maahe waa iska basiida alaa baraarug weeye hooy bay ka dhigan tahay alaa hooy hadda inahum ayagu hum ayagunba almufsiduun ah inabaa la keenay adaatu tanbiihna waa lala yimi humna waa damiiru lfasli almufsiduuna khabarkiina waa mucaraf waxaad garanaysaa fasaadka asalkiisuba inay iyaga yihiin alaa hooy inahum ayagu hum ayagunba almufsiduun kuwa arlada ilaahay fasahaadinaya ah walaakin laa yashcuruun ha yeeshe ee ma oga oo ma dareensana macnaha shaygan ay islaaxa u arkayaan ayaaba fasaadka laftiisa ah laakiin jaahilnimo ay ku sugan yihiin daraaddeed ayaanay dareensanayn waxaanay samaynayaan inuu fasaad u yahay waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga aaminuu rumeeya kamaa aamana kaafkani fii maxali nasbi waa nactu limasdarin maxduuf weeyi tarkiibka si fudud isu saaro waxaa tidhaa waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga aaminuu rumeeya iimaanan rumayntaasoo kamaa aamana annaasu ay ka iimaani nnaasi
dadka rumayntooda lamida qaaluu waxay yidhaahdaan anu'minu ma waxaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau siday u rumeeyeen kuwa liita ee wax magaratada ahi waidaa qiila lahum marka lagu yidhaha aaminuu rumeeya iimaanan rumayntaasoo kamaa aamana annaasu ay ka iimaani nnaasi dadka iimaankooda oo kale amba rumayntooda oo kale ah qaaluu waxay yidhahdaan nu'minu ma waxaanu u rumaynaynaa kamaa aamana sufahaa ay ka iimaani sufahaa miyaanu u rumaynaa alaa hoy inahum ayagu hum sufahaau iyagunba a kuwa wax magarata ah walaakin laa yaclamuun ha yeeshe ee ma dareensana waidaa laquu markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alla ayaanu rumaynay oo iimaan baanu leenahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim khalaa ficilkan la yidhaahdo maanta ilaah baa lagu xidhay uu ku tacadiyaya macnaha ficilkanuu xambaarsan yahayo idansarafuu buu noqonaya waidaa khalow markay u gaar noqdaan markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintooda markay xaggooda u kicitimaan bimacnaa shayaadiinta waxaa loola jeedaa waa kuwii madaxdooda ahaa weeye markaa khalowna bimacnaa insarafuu weeye ilaadaad ku garanaysaa ma og tahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim xagga shayaadiintooda kuwoodii xukumayay ahlu sharka ahaa qaaluu waxay yidhaahdaan innaa anagu macakum idinka ayuun baanu nahay kuwo idinla jira markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alla ayaanu rumaynay oo iimaan baanu leenahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim khalaa ficilkan la yidhaahdo maanta ilaah baa lagu xidhay uu ku tacadiyaya macnaha ficilkanuu xambaarsan yahayo idansarafuu buu noqonaya waidaa khalow markay u gaar noqdaan markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintooda markay xaggooda u kicitimaan bimacnaa shayaadiinta waxaa loola jeedaa waa kuwii madaxdooda ahaa weeye markaa khalowna bimacnaa insarafuu weeye ilaadaad ku garanaysaa ma og tahay waidaa khalow markay u kicitimaan ilaa shayaadiinihim xagga shayaadiintooda kuwoodii xukumayay ahlu sharka ahaa qaaluu waxay yidhaahdaan innaa anagu macakum idinka ayuun baanu nahay kuwo idinla jira inamaa naxnu anagu waxaanu ahaynun markaanu islaamka sheeganaynay mustahzi'uuna kuwa iska dheeldheela allahu alle ayaa yastahzi'u ku dheeldheeli doona bihim ayaga istisaasoo lama iman alle ayaa ku dheeldheeli doona subxaanahu watacaala oo waxyaa dheeldheelidda ilaahay ku dheeldheeli doona waxaaba ka mid ah maalinta munaafiqiinta la marayo yowma alqiyaama la taagan yahay ee munaafiqiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhadigba ay yidhaahdaan dadkana induruuna naqtabis min nuurikum ayaa la odhan doonaa noqda oo xagga dambe balka doona nuurkiinii nuur ay leeyihiinna ma jirin allahu alle ayaa yastahzi'u ku dheeldheeli doona bihim ayaga ma arkaysaa wayamuduhum alla maaragtay wuxuu kaga tegi subxaanahu ugu kaadin doonaa fii duqyaanihim lunsanaantooda ay lunsan yihiin ma arkaysaa amba wuxuu u siyaadin doonaa naf iyo maal buu alle u siyaadin doonaa fii duqyaanihim ayagu yacmahoon xaalay yihiin kuwa wareersan oo aan xaq ku taagnayn oo maaragtay jiha walba kuwa ujeedaba ah yacmahoon xaalay yihiin kuwa wareersan oo maaragtay xayaara ah oo aan helaynin meel ay uga baxaan lunsanaantana ay lunsan yihiin ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye ishtaraw iibsaday addalaala baadinimada kuwa soo iibsaday weeye bilhudaa hanuunkii kusoo iibsaday ee hanuunkii ka tegey baada waxaa la gelayaa shayga laga dhaqaaqo wey hanuunkiibay ka tegeen oo waxay soo qaateen baadinimo ulaa'ika duulkaasi aladiina kuwa weeye ishtaraw adalaala baadinimada soo iibsaday ee soo qaatay bilhudaa kusoo iibsaday ee ka yimi hanuunkii ee shilimaday suuqa kaga yimaadeen hanuunkoodii noqday famaa rabixat may faa'iidin tijaaratuhum ganacsigoodaasi ma faa'iidin wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiin kuwa hanuunsanna may ahaanin baa la yidhi subxaanahu watacaala hanuunkii bay ka lexdeen baa ilaahay leeyahy subxana watacaala baadinimo ayay soo qaateen mathaluhum tusaale ayuu haddaba rabbi inaga siinay mathaluhum mathalka waxaa la yidhaahdaa jamacna waxaa laguna jamciyaa amhaal baa la yidhaahdaa mathalku waa tusaalayn weeye ilaahay wuxuu inoogu tusaale inoo siiyey nimankani marka ay sheeganayeen islaamka
إيمانك أي داهر سنيين إلا قال ما أي حمان بكدم بيسيانه إن يهايين من يفتين أبحي وأبدامي مركي إيمانك أي كان نغذينا وحا كد عين ما ركتي مدو يلو سنان أنا كبحي مركا مثل كان بلدي مثلهم كوان صفدو أنبت المانتود كمثل الذي كي صفدي سوك لوي استوقد أي أوقد سينك أيتادو بالسلوي مثلهم كوان صفدو أنبت المانتود كمثل الذي كي صفدي سوك لوي استوقد شضي نارا ضبشطي فلما مركي أضاءت أي إفصي ما أي الذي كي مركي إفتيمسي حوله إساق هريره ساحا أما ماذا بصلك هدقو فلما مركي أضاءت أي إفتيمسي نارتو ما حوله أي حوله هريره سمركي إفتيمسي ذهب الله وجوابت لما ده ذهب الله ألا لتقي بنورهم نور كودي بالك قال سبحانه وتعالى وتركهم ربك قتقي في ظلمات مدو يدحدود لا يبصرون حال أني وحب أركيني لا يبصرون على كونهم ما ركت أني وحل وحي أركيان با أني ترين مثل كان وحي إلهي يكشبه مركي بعض النماذا هنونكي كسو إبسدين إلا إن بصير إلهي هنونكي بيكي مادين markaasay soo qaateen indhalaan waa sida qof markuu dab shiday ee dabkii uu ku intifaacay bidix iyo midigba wixii ka xigay markuu arkay baqihii uu ka bacay isagoo xaalada ku sugan mar qura uu dabkii dam yiri tahareerihiisoo dhan uu dareemay maaragtay madowgan ku xeeran oo wax alla wuxuu arkayaa aanay jirin sidaas oo kale ayay ka dhigayeen summun ay hum ayagu summun kuwa dhagaala weey معنى كما انتفاعيان ودقيه باني كو انتفاعي إلا اندقاها وحبي مغلياني منكني لكن مغل كواحد لو جدا مغل وحطريا معها ما أركيسا الله وحلاي هم أيقو قدر وابتدين قدره صم كوا دقالوي بكم كوا أفلاوي يؤون حقا كودا واقع عمي وكوا إنالا أون حقا بارك فهم أيقو لا يرجعون ما صنع قندونان بإلهي سبحانه وتعالى كوة تقوية أو قال لما كف قاديو قال لما دابان كسونقن أو كصيب أو ضني بمعنى واو وإن قطع أمار كيسا لبدا مثل كل بكية دونتات سينكاري علماء قالوا حلين مثل كان دنباء وحاو كساب سيهي ما أركيسا إلهي وحي كانوا رسول كيسا كسو دجيي أيابا نوعا بإسكاها oo maartay sayibkan madarkan waxa lagu tilmaamayaa maartay waxiga rasuulku uu leeyimay iyo cilmigu uu siday iyo dadku siday ugu kala duwan yihiin aw anbase mathaluhum bad qadaraysa kuwan tilmaantoodu ka sayibin sida roob oo kala weey ka sayib sida roob oo kala weeye roobkaasoo min as-samaa samada xaggeeda ka ahaaday samada xaggeeda ka shubay kaasoo fiihi ay ku sugan tahay dhulumaat madawyo oo isagu madawyo malaha laakiin waa shakiga munaafiqiinta ku jira ay ka shakisan yihiin wacdigan weey waa maartay waxigan weey fiihi ku sugan yahay dhulumaat madawyo wa fi hal dhulumaat wa shukukta iyo kufriga iyo nifaaqa ay la imanayaan wa ra'd oo ku sugan yahay unkud maarkaysa ra'digu malagna uu yahay sida rasuulka ka ansaxay salawaatullaahi wasalaamu wa ra'd oo ku sugan yahay unkud qulubta waxyaabaha lula ومثلا القرآن وحيابان وحنبارسن يا سواجرتا يدك وحكرب يا وعيدك أبق يعقابك ويبوها أي الرعد قاسو كلام موت وبرق وكسوغن يهلع إلى وحي يفتين بوضع مركا حبيبكو أركيان وكسوغن يوكل يجعلون استنافوي يجعلون وحيالا معنى وحي كدن أنت كاسو كلا هدوها يسيديهن أو كصيب أو كأصحاب صيب سيقول الروب هيا أو كلا أي لمده صيب كاسو من السماء كاسو فيه كسوغن ظلمات ماذا يؤيا ورعد وبرق يهلع يجعلون وحيالان أصابعهم فرها عاردوده يجعلون مركينا فرهم بقري كردق عارض يجعلون وحيالان أصابعهم فرهوده في آذانهم نجاها أي فرها قليان مركا الضرب كأي هنقر كاسو دعية بمعنى مركا وحي سود دقيو مدى يسان كرانو مقادا كرانو maxay dhagaha faraha u gelinayaan
min asawaaciqi danabka daraadii ay liajli asawaaciq waa jamcu saaciqa min asawaaciq danabka daraadii bay dhagaha faraha u geliyaan miya maxay kale xadara almawt waa mafcuulu lahu isaga laftigiisu xadara almawt geerida ka baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed ayay sidaa u yeelaan xadara almawt geerida amba mawtka ka baqashadii dartii bay sidaa u yeelaan wallahu allana muxiid kii koobay weeye amba kii halaagi weeye bilkaafiriina kuwa kufreeyay gaaloobay yakaadu wuxuu ku dhowaadaa albarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dhufto absaarahum araggooda inuu dhufto ila nimanka basiiradoodii baa jilicsan waa daciifa markaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaacaas waxyigan iyo nuurkani marka uu soo degay wuxuu ku dhowaadaa inuu damsiyo uu baabiyaba ma og tahay ila nimankani mar iimaan bay muujisanayeen waxoogaa istinaasa bay helayeen waxoogaa bay mararka qaarkood intaasay ku soconayeen kadibna kufri iyo gaalnimo iyo nifaaq bay ku masaxayaan yakaadu wuxuu ku dhowaadaa albarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dhufto absaarahum inuu dhufto kullamaa mar alla marka adaa'a uu u iftiimiyo amba adaa'a uu u iftiimo saro adaa'a uu iftiimiyo lahum ayaga mashaw way socdaan fiihi waxay ku socdaan iftiinkaasay ku socdaan mararka qaarkood waxoogaa mashaw fiihi way ku socdaan oo de waxyaaba fara badan bay ku helayeenoo dadka ahluliimaanka waa laga ilaalinayay way iskuursanayeenoo dee haniimo haddii la helo haniimaday wax ka helayeenoo intaba moogta waidaa adlama markuu madoobaado calayhim korkooda markuu ku madoobaadana qaamuu way istaagaan oo way joogsadaan qolyaha noocaas oo kale ayuun bay la mid yihiin xaalada dadka kale walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maxay had iyo jeer ale mafcuulka shaaa waa xadfan yahay walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa an yadhaba inuu la tago maqalkooda iyo araggoodaba la dahaba waa uu la tegi lahaa bisamcihim buu ka qaadi lahaa iyo wa absaarihim intaba uu ka masixi lahaa ina allaha alla calaa kulli shay walba qadiir allah kara weeye subxaanah yaa ayuha annaasu dadow yaa ayuha ayudaasaa munaadihiye ma og tahay haaduna waa litanbih yaa ayuha kaagani annaasu dadka ahaw ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda aladii rabbiga khalaqakum idinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka horreeyey allaha abuuray caabuda lacallakum tattaquun ay likay tattaquu sidaad alla uga baqataan subxaanahu wa tacaala rabbigiin caabuda alladii rabbiga caabuda jacala yeelay amba jacala ay khalaqa abuuray lakum idinka daraaddiin u abuuray alarda arlada idin abuuray firaashaa xaala kawnihi firaasha xaal ay tahay gogol allaha idin abuuray amba alladii allaha caabuda jacala ka yeelay lakum ay liajlikum idinka daraaddiin uga yeelay alarda arlada uga yeelay firaashaa markaa mafcuul aynu ka dhigno alladii allaha caabuda jacala ay khalaqa abuuray lakum liajlikum idinka daraaddiin u abuuray alarda arlada u abuuray firaashaa marka arlada ka xaala kawniha firaasha xaal ay tahay firaash amba gogol amba alladii allaha caabuda jacala ka yeelay lakum ay liajlikum idinka daraaddiin uga yeelay alarda arlada idinka yeelay firaasha gogol wasamaa samadana idinka dhigay binaa'a saqaf amba dhismo binaa'a idinka dhigay waanzala dejiyey min asamaa samada xaggeeda idinka soo dejiyey maa biyo idinka soo dejiyey ee fa akhraja soo saaray bihi ay bilmaa'i biyihii ku soo saaray min athamaraati midhaha xaggooda kaga soo saaray risqan ay marsuuqan lakum mid idinka laydinku arsaaqo risqan ay marsuuqan lakum mid idinka laydinku arsaaqo fa akhraja soo saaray bihi ay bilmaa'i biyihii ku soo saaray min athamaraati liibtidaa ilgaaya min athamaraat midhaha xaggooda kaga soo saaray risqa ay marsuuqa wax la laydinku arsaaqo lakum idinka falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alla ha u yeelina andaada kuwa aada la sintaan amba u dhigma alandaad waa jamcu niddin waa shay la mid ah weeye andaada
كوا بربر دكتان بعض لسنتان والحال أنتم إنكم تعلمون هو أكسون أتين ربنا الله والحال أنتم تعلمون حالاتي كوا أكسون هو يوغاين إن أنو إله سبحانه وتعالى كوا أدقما إلى وبناء الساس وقاية أهل الكفر حتى هرنا وقاية أنت كلنا هذا الكود بدل وإن كنتم هداته في ريب شكي كوي كجسوجا هداد هاتين وإن كنتم هداد هاتين في ريب شكي كوي كجسوجا مما كي حقي هديئات كشكي سنتهين نزلنا عن كسود دجني على عبدنا أدونك يجا كانوا كسود دجني هداد كشكي سنتهين فأتوا لك عليا بصورة بل صورة لك عليا صورة داسو من مثله أي مثله إسقعوا كلا بل صورة كلية كينا مركا حد قرنيسا صورة دانيري البقرو كلا إيتا والعصر يوكرين يسكن مديه مر بين الله ما كان وإن كنتم هاتين في رايب شكي كوي كغسوغان هديات كشكي سنتهين مما كي هديات كشكي سنتهين نزلنا تضعيف وحكينا يا مارك تكثير أنو كزودا دجنا على عبدنا عضونك يجن محمد فأتوا لك عليا بصورة بصورة لك عليا من مثله إساقوا كلا وادعوا يادا شهداءكم يادا بل كوا سوحا كوا ويري كرتان شهداءكم كوا كالميستان ويرا كوا إذي مادا من دون الله ويرا إن كنتم هداتين صادقين كوا كرون شيئا الله يمن كرتان فإن لم تفعلوا هديدان سدا سمين ولن تفعلوا ما بسمين دون تاني جملة معترضة ليلة هدايو جواب يدو مارتي فاتغودني جوابتا فإن لم تفعلوا بين غنيسا فإن لم تفعلوا هديدان سدا سمين ولن تفعلوا ما بسمين دون تاني أو سورة كلية بالله ما إيمان دون تاني فاتغوا اسكيل عليها النار كبقى التي النار تاسو وقودها شدال كيدوبا وقود أو حلقوا الشضي وشدالك وقودها شدال كيدوبا الناس ذاتك ويهي والحجارة دكحانت ضد ضد من لقوا الشضي مركا حجارة ذي محيهين مقار إله النار الشدال وقد دقيا علماء قاركود وحيقضان إلي قاركود بايهين دكحانتي عابد الترين وعدت تاسو اللو دياريي للكافرين مركا عدت والنارتي للكافرين اللو دياريي أئمة سنة وحيود ريشدان آيادا إن النار تلفتي هذه مخلوق أي تهي وهذا مترتبة أي تهي الله وحوري سبحانه وتعالى وبشروا بشارة نبيهم الذين كوا بشارة آمنوا على الرميي وبشروا بشارة له الذين كوا واحد بشارة آمنوا على الرميي وإيمان هبون إيمانكم ماركتي إيمان ليمي وعملوا فلايا الصالحات عملا ونكسن الصالحة واحد بشاريسا أن لهم أي بأن لهم أيغا إني أسقناتي جنات إني أسقناتين تجري أي قلقليسو من تحتها هوستيدا الأنهار التوق أي قلقليان كلما مر الله مركا رسقوا لأرساقه لقى أرساق رسقوا لقى أرساقه إيغا منها جنة حقيدا من ثمرة من حقود رزقا مركا لقى أرساقه أي مرسوقا قالوا وحيدادان هذا كري الذي كيوي رزقنا لقى أرساقي من قبل حد هرتين حق مذبك أي يولد شيدا والحال بيسيدا إلادان أوتوا لسيي به رزقا بلسيي والحال قد أوتوا لسيي به كا متشابهة حال كونه متشابهة حال يهي كاسكي السوى ايغا اسشبهي يعني حق مذبك لا يلونك يا أركتذا أي اسكشبهي يا ددنك أن اسكشبهيني ولهم وحي ليهين فيها جنة دحديدا وحي كليهين أزواج هوين بي كليهين لما نيال مضهرة لظهيري مظهرة لظهيري بكليهين وهم أيبوا فيها جنة دحديدا خالدون كواردون وي وحكستما ويكتهيريين وبنادم كل بصده والله فالحما إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي كما حشاده سيدا ساسك ورنيسا لا يستحيي كما حشاده أن يضرب ربي إنو عديو أبا شيغو مثلا تصال الربي إنو شيغو ما وحون إنو شيغو إبهامية ويه ما وحون إنو شيغو محاسو بعوضة كنعاء
inuu tusaale wax lagu qaato rabbi ka dhigo iyo famaa fawqaha wax iyada kasii sarreeyo kasii weynba amba famaa fawqaha iyada wax kasii liitan marka tarkiibkan dhowr siyaabood baynu isu saari mar wuxuu iska noqonayaa maadu hunaadan litaqliil baa la yidhaahdaa markaa bacuudada waxa lagu nasbiyey waa bedel bay noqonaysaayo waxaad odhanaysaa ina allaha alle laa yastaxyii kama xishooda an yadriba inuu caddeeyo mathalan maa tusaale uun inuu rabbi caddeeyo ka bedel bacuuda rabbi inuu sheego amba u caddeeyo iyo famaa fawqaha maada sila ayaynu ka dhigi kariyo waxaynu odhan ina allaha alle laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu ka yeelo bacuudatan kaneeca rabbi inuu ka yeelo mathalan maa mathal rabbi inuu ka yeelo tusaale iyo famaa fawqaha iyada wax kasii liitaba amba wax kasii liita amaba kaba sarreeyaba oo markii hore maada waxay noqon kartaa oo kale nakiratun mawsuufa bay noqon kartaayo waxaad odhan kartaa ina allaha laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu ka yeelo mathalan tusaale rabbi inuu ka yeelo maa shay inuu rabbi ka yeelo shaygaasoo bacuuda ah kaneeco iyo famaa fawqaha waxa iyada kasii liitana faama aladiina kuwa aamanuu alla fayaclamuun way ogsoon yihiin annahum mathalkaa alle sheegay alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigood ka yimi ilaa nimankan mushrikiintii waxay dafireen oy diidanaayeen ilaahay markuu tusaalayaasha ka dhigay mathalan dee kaneecada duqsiga oo kale iyo caarada oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ayay yidhaahdeen waxaan ilaahay maaragtay dadka wax ku dhacsiinayaa maxay tahay markaasaa ilaahay leeyahay wax kastuu rabbi xaqa uu ku caddaynayo waa uu sheegayaa weeyo kama xishoodo fayaclamuuna waxay annahu alxaq inuu yahay min rabbihim wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhan maadaa maxaybuu araada allahu alla ula jeedaa bihaadaa kan mathala xagga mathalka waa tamyiis weeye amba maa maxay buu yahay daa ayu ladii kaasi asaan idhaahno oo maadaa inuu ismi keliya ka dhignayo inuu kala tuuro maa maxay buu yahay daa ayu ladii kaasi araada allahu ula jeedaa rabbi hada kan mathala xagga mathalka amba maadaa maxaybu araada allahu alla ula jeedaa bihada kan mathala xagga tusaalaynta rabbi muxuu uga jeedaa yudilu wuu ku lumiyaa alle bihi mathalkaa uu yeelay kaiira in badan ba alle ku lumiya wayahdi wuxuu ku hanuuniyaayo xaqnimadiisa rumeeya bihi mathalkaasi kaiira in badan wamaa yudilu kuma lumiya alle bihi mathalkaa ila alfaasiqiin kuwa baxay ee faasiqiintaa mooyaane cid kale alfaasiqiin waxaa lagu nasbiyey mafcuul wey wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin aladiina faasiqiintaaso yanquduuna jabiya cahd allahi ilaahay axdigiisa jabiya min bacdi miihaaqihi adkayntiisa dabadii intii la adkeeyey dabadii jabiya wayaqdacuuna gooya oo jara maa ayu ladii kiina gooya amara allahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xidhiidhiyo wax kastoo ilaahay xidhiidhiyana way gooyaan hadday cibaadadiisa tahay hadday qaraabo tahay hadday xuquuq kalena tahay aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna jabiya amba buriya cahd allahi ilaahay axdigiisa buriya min bacdi miithaaqih axdiga adkayntiisa dabadi waa loo adkeeyey oo wayaqdacuuna jara goynaya maakiina gooya amara allahu alla uu faray bihi maagaba an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayufsiduuna fasahaadiya fi lardi arlada fasahaadiya waa kuwa alla lumiye faasiqiinta ahi ulaa'ika kuwaasi hum ayaga alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah kayfa takfuruun kayfa sideeba takfuruuna aada ugu kufridaan billaah alle sidee ayaad ugu gaalowda waa arrin aydaan xaqu lahayn wey kayfa sideebaa takfuruuna aada ugu kufridaan billaahi alle walxaal qad kuntum aada ahaydeen amwaata kuwa dhintay oo mayd ah oo fa axyaakum alla uu idin soo nooleeyey ila idinkoo jirin baa ilaahay berri ina noolaynayaa ma ogtay qaaraan maanta noolayn baa berri noolaan doona kayfa waa nolosha hore wa dhimashadana waa jiritaankii intaynaan imanin weeyaan oo alla bayna abuurin kayfa takfuruun sidee ayaad ugu kufriyaysaan billah walxaal qad
qadar markaa qad kuntum aad ahaydeen amwaata kuwa dhintay kuwa aan jirinba amwaata aad ahaydeen kuwa aan jirin oo fa axyaakum alla uu idin nooleeyey uma haddana yumiitukum alla idin diri doono uma yuxyiikum dabadeedna uu idin soo noolayn doono nolosha dambe uma ilay dabadeed alla xaggiisa un turjacuuna la idin celin doono sidee ayaad ugu kufridaan ilaahay xaq uguma lihidin maaragtay gaalnimada noocaas huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray lakum idinka daraadin ay liajlikum idinka dartiin u abuuray maa fi lardi arlada waxa ku sugan oo dhan jamiica xaaluu yahay waa halka laga istinbaado qaacidada tidhaahda alaslu fi lashyaai ibaaxa wa huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray lakum ay liajlikum idinka idiin abuuray maa fi lardi arlada waxa ku sugan jamiica xaalay tahay culimada qaarkood waxay u daliishadeen ciidda oo la cunaa inay xaaraam tahay aadkan ay ka istinbaadayaan oo dee darar iyo dhibaatay leedahay muxaram weeye uma istawaa rabbi wuxuu u kor noqday ila asamaa samada xaggeeda culamada qaar baa waxay ka hadleen istawaa markuu ilaaga ku tacadiyo bimacnaa qasada inuu yahay rag sidaa ku fasirina waabay jiraan oo waad ku arkaysaa niman maaragtay caqiidada salafka aan lagu dacnihi karin oo rag habboon ah ayaa sidaa ku fasiray laakiin waxaan moodayay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala istawaa bimacnaa ilaada markuu ku tacadiyo cid tidhaahda bimacnaa qasado weeye ninka ibnu qutaybe la yidhaahdaa inuu ugu horreeye cid uga horraysayna inaanay jirinba ibnu jariir adabari wuxuu iskaga wadayaa inay tahay uu istawaadani tii macruufka iska ahayd wey uma istawaa rabbi wuxuu u kor noqday ila asamaa samada xaggeeda fasawaa ay fasayara baa fasawaa wuxuu ka yeelay huna samaawaadkii alla wuxuu ka dhigay 7 samaawaat 7 sama ayuu alla ka dhigay fasawaahunna rabbi wuxuu ka yeelay 7 samaawatin 7 samaawaat 7 abuu rabbi ka yeelay wahuwa alla bikulli shay kasta caliim ilaha ku cilmi badan wey wadkur xusnabiyow idwaagii sheeg wadkur sheeg idwaagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu uu ku yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi innii anigu jaacilun kii yeeli baan ahay fi lardi arlada waxaan yeeli doonaa ayaan ku abuuri doonaa khaliifa kuwa iskaga hadha oo qaarkoodba markay dhintaan qaar kale ay yimaadaan wadkur xus idwaagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu uu yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi innii anigu jaacilun kii yeeli baan ahay fi lardi arlada khaliifa kuwa iska dhaxla oo iskaga dambeeya oo qola markay tagto qolo kalebaa iman doonto ayaan yeeli qaaluu waxay yidhahdeen markaa malaa'igtii atajcalu ma waxaad yeeli doontaa fiiha arlada dhexdeeda allahuma waxaad ku abuuri doontaa man maqaar baad yeeli doontaa yufsidu fasahaadiya fiiha arlada fasahaadiya oo wayasfiku daadiya addimaa'a dhiiggana daadiya ma kuwaasaad ku abuuri doontaa halkay wax ka fahmeen wallahu aclam culimada qaarkood waxay leeyihiin khaliifadaasay ka fahmeenoo waa qaar iskaga dambaynayo jilba jilka kale uu ka tegayo marka halkaasay ka laaxideen baa la leeyahay ma arkaysa marka ilaahay baa ku cilmile sida ay maaragtay u ogaadeen waalcilmu cinda allah qaaluu waxay yidhahdeen atajcalu ma waxaad yeeli fiiha arlada dhexdeeda man maduul baad yeelaysaa yufsidu fasahaadiya fiiha arlada fasahaadiya oo wayasfiku daadiya waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam weeye fasaadku waa daadinta dhiiguna addimaa'a dhiigaga daadiya walxaal miyaad kuwa abuuraysa naxnu anagu nusabbixu aanu tasbiixsanno oo adiga waxaan kuu cuntamin oo dhanba aanu kaa nasahno bixamdika xaala kawninaa xaamidiin xaalaanu nahay kuwa adiga ku ammaana oo mar qura ammaantaada aan ka suulin ay multabisiina baad odhanaysaa bixamdik xaalaanu nahay kuwa had iyo jeer alee ku maran ammaantaada oo wanuqadisu xaalaanu ku dahirayno laka adiga ma arkaysa qaala rabbi wuxuu yidhi innii anigu aclamu waxaan ogsoonahay maa waxbaan ogahay laa taclamuun aydaan ogsoonayn war waxaydaan ogeyn baan ogsoonahay marka atajcalu fiiha man yufsid su-aasha noocanihi maxay malaa'igta ka tahay culimmadu waxay leeyihiin waa su'aalu listiclaami waistikshaafi can alxikma ujeeddada ilaahay u abuurayo bani aadamka amba khaliifkan ayay weydiiyeen marka waxay ujeedaanuun yaa rabbanaa ma alxikmatu fii khalqi haaulaa maxay tahay xikmadda rabbi ula jeedaa iyagooy ka mid yihiin qaar arlada fasaadin doona oo dhiigga daadin doona ma arkaysa haddii muraadku uu yahay cibaadadaada inaad u abuurayso inay ku caabudaan
لأنكم ونك عابدينا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك أمارة ولا يستر منا شيء من ذلك مرساسوك لك دقنتي مركاسا إلهي إني أعلم ما لا تعلمون أنا وحا نكسونه وحيدا نكسونين أيان أقهي بان ربي سبحانه ألا وحولي وعلم ربي وحو بري آدم وحو بري أبور إلهي آدم مركا وعلم وحو بري آدم ألا وحو بري نبي آدم وحو بري الأسماء مقعيدة شيء كستئية مقعيدي سو بري شيء والبا وحا الله يلاد كلها لما انت تبايو إلهي بري سبحانه وأشرف آدم ليه ثم دبدت عرض وحو أبندقي هم magacyadii iyo wixii lagu magacaabi jirayba waa ismiga iyo musamihiiba oo caradahum baa la yidhi ma ogtay waa ashyaadii uma dabadeed carada alla wuxuu u bandhigay hum ashyaadii magacyadooda aadamuu baray cala almalaa'ika malaa'igtii buu u bandhigay waa ashyaadii aadam magacyaday lahaayeen baray ayaa ashyaada laftoodii buu malaa'igtii u bandhigay faqaala markaa alle wuxuu yidhi أنبئوني إيشيغا أنبئيغا ورما بأسماء هؤلاء كوان مقعيدو ذا إيشيغا أنبئوني إيشيغا أنبئيغا ورما بأسماء هؤلاء كوان مقعيدو ذا إيشيغا إن كنتم أداتين صادقين كوكور شيغا يا مارتارين تاترادين قالوا وحيد هذه الملائكة سبحانك إله يوهفنان تاذا وأذوحهم بكنه سهنتهي أيانو كنا سهينا يا سبحانك إلهي ونسهنانت هذا حمان ودنبعد كنا سهنتها لا علم لنا أنك علم النوم وأهان إلا ما كيمو يعني علمتنا عدنا برطي سبحانك هذا يتشير مستركم معنا وحلو ذا اسمك إلهي وحانو كان نسبح سبحانك معنى أن السهنانت هذا أدحمان ودن كهفنت هايبانو كهفين حمان تنبانو كان سهينا لا علم لنا أنك علم النوم بسقنان إلا ما كيمو يعني علمتنا عادنا برطي إنك أدق أنت العليم الله علمك بدن باتايا الحكيم حكم إيه حكمت بأو صاحبه قال وحولي ألا مركا يا آدم أنبئ وورمهم أيها ملائكة بأسمائهم أي بأسماء هؤلاء قال ربي وحولي يا آدم أنبئ شاكهم ملائكة بأسمائهم أي بأسماء هؤلاء كوا مقعيدو ذو شاك markaasuu aadamna uu sheegay waa la gaabiyey waa uu sheegay falamaa markii anba'a uu sheegay aadam hum malaa'igta markuu u sheegay biasmaa'ihim magacyadii waxyaabahay garan waayeen markuu aadam uga warramay malaa'igtii qaala alle wuxuu yidhi alam aqul lakum miyaanan idinku odhanin إني أنجو أعلم وحانكسوناي غيب السماوات ساتك وحا كم غنية والأرض أرلد وحا كقرصون وأعلم وانكسوناي ميانا إذن كؤرن ما تبدون وحد موجين إيسان إيوما متك كنتم هذا إذن تكتمون كوي قرية